kulan wacan dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho. barnaamijku waxaa toddobaadkan marti ku ah Dr. Cabdirasaaq Mirax Xasho oo ka tirsan xarunta daryeelka xoolaha ee dunya ee ku taala magaalada Muqdisho. waayahay doctor soo dhawow, waxaan gudagalaynaa su'aalaha dhegeystayaasha ay na soo weydiiyeen. su-aasha koowaad iyo dhegeystaha na soo weydiiyey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد عثمان أو جو دقمة عيال أرجع يا واحد يقطع يرقد مرة قمنا يرقد جيب أرسل كله عن ويدينا راديو يرقد ما قبير كتبختر كراديو اللي سؤال أرجع يرقد سلا واحد الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa mahadsan dhageystahaas xanuunka duriga u baxsha ama hargabka asagoo u yaqaano xanuunada xoolaha ku dhaca calaamada ay soo saaraan jira calaamadahaas calaamad kamid ah ayuu asagu ka wada hargabka ama waxyaabahan diifka iyo qofca iyo qandhada kamid ka ah cudurka ugu caansan oo Soomaaliya u taqaano CBB ama sanbabka ama wax lamid ah oo calaamadaha soo saara ayaa jira umuuman cudurrada noocaas ama calaamadahaas haduu neefka qofkaas walaalkeen oo xoolaha dhaqda wuxuu la sameey karaa hadii ay jirto xarumo dad xoolaha daryeela ama caafimaadkooda dhaqaatiir inuu la xiriirino aad u fiicanta si dawooyinka haduu kala yaqaano laakiin haduu dawooyinka akhri karo magacyo badan dawooyinka dadku yaqaan laakiin waxa loo baahan yahay inuu siiyo dawo antibiyootiga oo ama qallajiyaha dadka u yaqaaniin dawooyinka aad caanka ah oo dalka yaala hadda waxa kamid ah Benstrip dawo la yiraahdo ama penicillin iyo streptomycin ama Benstrip dawaas qallajiyaha baa aad loo isticmaalaa dawooyin kale oo ayadana dawo Tylosin la yiraahdo ama dawooyinka sanbabka ay dadku u yaqaaniin la jira ayadana waa antibiyootik kale midda uu heli karay uu siinaya laakiin dowska uu siinaya ama garaamka uu ka siinaya waa muhiim neefka inta mar uu siinayona waa muhiim neefka hal mar xooleydu inta duraan inay ku fiicnaadaan badan jeceliin laakiin waxa sida saxda ah neefka duu jiran yahay in maalin iyo 2 iyo 3 inta uu baahidiisu tahay la daaweeyo dawadaasna la siiyo dawadana inta ku filan la siiyo lagana badin lagana yarin neefku haduu neef ari haduu weyn 3 cc u badan 3 iyo bar 2 iyo bar neefku intuu miisaankiisu yahay intuu la eg yahay inuu neef weyn neef yar yahay muhiim weey waxa kale oo muhiima neefku haduu waa noole waa xanuunsada waa qandhada sida bani aadamka oo kale neefka haday qandhaydo in qandhada laga jabsho aad ay muhiim u tahay dawooyin badan jiro qandhooyinka lagu jabsho xoolaha qandha jabin ah magacyada kala duwan dadku u yaqaaniin hadii laga helo aaga uu degan yahay neefka markuu qandhoodo aad bay muhiim u tahay in qandhadaas laga jabiyo oo helo dawo qandha jabin ah laakiin dawada antibiyootiga aad ay muhiim u tahay dawsku ka siinayna waa muhiim inta waqti uu siinaya aad ay muhiim u tahay in la tacaalo waayo doctor marka hargabka xoolaha ku dhacay midka bini'aadamka ku dhaca maxaa farqiga u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya hargabka bini'aadamka ku dhacay kan dadka ku dhaca qayb isla wadaagaan oo sida hargabka shimbiraha hadda kor loo baxshay iyo wax lamid ah waa jiraan oo magaca kore ama cudurka waxyaabaha sababa bacteria sababta isku magac ay yihiin laakiin serotype-ka wax la yiraahdo ama noocyada markaas xoolaha saas u haya isagu gaar u yahay CBB midka sababa iyo bakteeriyaadka sababa marka si gaar ah bakteeriyada sada ku dhacdo kale ma aha wax qofka inta u gudba asaga hargab ku ridaya ama sida ay dadku hadda u maleynayaan cudurrada hadda socdo oo sidii coronavirus oo neefka ku dhacay waa qufacay waa naqasahay iyo waxaas dadku ay isla wadaagaan ma jirto cudurro badan baa jiro la yiraahdo zoonosis oo xoolaha iyo dadku ay wadaagaan laakiin cudurkaanu kamid ma ahan cudurka hadda ka hor la sheegi jiray dadku ay loo oqoon jiray hargabka shimbiraha iyo wax lamid ah jiri jiray dadka aad ugu faafay mana ahan cudurkaas CBB-dan hadda haya iyo kan dadka ku dhacaya shaqo isku meel labadoodu laakiin xilliyada kala wareega sida dadka ugu dhaca hargabka asaga environment-ga ama bii'ada saameynteeda kuleylka qaba markii kala wareegayaan ayaa xoolaha laga yaabaa isbedelkaas inuu ku dhaco cudurradaas neef mareenka soo maray waayahay su'aasha labaad ayaan eegaynaa iyo dhageystaha na soo weydiiyey وإذن سلام راديو إرجو وإذن سلام وعول سامي أحمد وإذن كلا سو هذا يدقانك حقل أو كترسن قبل كالساحل دكتور راديو إرجو مرتدى إذن كا وحنا ويدينا يا حنان هذا حولها حنون حملها أرجع كجلا ونيو أن قرن ويني وحجها أنا مالك ما تاكل وأرقبة وناف كبرارة يو حنون أنتو رافها أنتو مركورنا جرجور سمر كدمنا برارة يو دبنا رافيه كافة دشوا سو دبنا ناف سدو جرجورنا يو مركز نبارك بكا هذا يسقى حنون كاسو أنا هرو أرقبة دكتور راديو إرجو ويدينا يا بل وحا ويجها يو وحا لقد ويجو
waa mahadsantiin radio ergo waay cawil waa mahadsan tahay waa kusoo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa korbararku inuusan isaga kala nuucnuuci ah bararku hadduu yahay barar ku kooban meelo kuuskuus oo jirka inta barbaro kadibna isqabsanaya ama barar jirka kulligiis hal mar qabsanaya xoolo badan oo tiro badan miyuu ku dhacayaa xoolo badan muu qabanaya mise neef si gaara oo xaalada kays farfardiya kaliya inuu yahay waxaa loo baahay markaas si loo xaliyo ama kayskaas loo xaliyo in la fahmo cumuuman bararkaas kale markuu yahay xaalad nooc ama xasaasiyad kamid ah ku keeni kara oo inuu neefkii waxyaabo gaar xasaasiyad ka qaado oo ama cuntadii uu cunay ah ama environmentiga uu joogo xasaasiyadaas uu ka dhalasho ah marka si basically ah badan haday xaaladaha farfardi yihiin ama kali yihiin aysan ahayn wax xoolaha dhan ama xoolo badan oo xoolahaas kamid ah qusay waa xaalad fardiya xaaladahaasna waa kaysas antihistamiin ku xiran xasaasiyadda wax lamid ah waxyaabo antihistamiin la yiraahdo sida dexa kale dawa la yiraahdo dexamethasone kale oo xoolaha way leeyihiin waana la helaa suuqyada laga helaa cirbad ama laba cirbadood oo kale haduu ka siiyo aaday u anfacaysaa aadayna xaaladaas hoos ugu degi doontaa marka wax antihistamiin quseeya ma xasaasiyadda quseeya oo aaga u jooga hadii laga helayo dawa dexamethasone la yiraahdo oo xoolaha loo isticmaalo dadkana way isticmaalaan haduu helo dhowr cirbadood haduu ka siiyo aad bay xaaladaas hoos ugu degaysaa hadday xaaladu marka caamta ama xaalado badan ay yihiin xoolo badan hal mar ay wada yihiin waxa muhiim ah inaan ka fakarno ama weydiino su'aalo ku saabsan xoolahaas waxay hadda cunaan wax ay hal mar wada wadaageen oo ay cuneen oo raashin ama biyo ah hal mar dawo la siiyo ama sunta lagu dhayo xoolahaas oo kale haday jirto suman lagu dhayo ama dawooyinkan dadku ay isticmaalaan inay cayayaanka ku dilaan oo kale oo isticmaal ay jirto sababahaas oo kale markay jiraan ama wax la mid ah haday jiraan sababtii markaan ogaana waxaan ogaa karnaa wixii aan kula tacaalayno uga hortagi lahayn ama aan ku dami lahayn culayskaas laakiin laba goor waxa muhiim ah hadda kayskaas in la helo antihistamiin ama waxyaabaha xasaasiyadda looga hortago noocay rabaan ha noqdaan wax agtiisa uu ka heli karo anaga dagsa hadda waxaan heli karnaa dexamethasone la yiraahdo inta taala hadda waxa qayb ka isticmaalo waxaan aad ugu rajaynaynaa in xaaladaas hoos u dhacdo insha Allah markaan cudurkan si gaar ah aan ugu sharaxno ama uu sharaxaad dheeri ka helo haddii xoolaha dhan uu ku wada dhicin oo uu neef yahay muxuu sameyn karaa marba hadduu neef kaysaska fardiga waasaan sheegayno hadduu kaysaska ay hal xaba tahay ama laba saddex wax lamid ah xoolo ay yihiin waa xaalad kali ah oo neefkaas ku dhacday ama xasaasiyad gaar oo ka qaaday ama wax gaar oo korkiisa taabtay ama qaniyo taabatay la qaniinay ama wax saas uu noqon karaa kaysaskaasna hadduu kula macaamilo dawada aan sheegayna iyo wax yar oo antibiyootiga aan badnayn laakiin waxa aad ugu muhiimsan antibiyootiga inuu helo antihistamiin noocay rabta ha noqotee hadduu helo bararkaasuna wuu degayaa neefkuna dabiicadiisa caadigiisa ku soo noqonaya hadday kaysku caam yahay ama xoolo badan uu yahay waxaa jira wax xoolahaas u dhaxeeyo sababtan keeni kara ama sun uu la macaamilay ama wax uu cunay ama wax uu cabay waxaas caamka ah oo keenay markaan fahnana waxaan la macaamilayna xoolahaas inay kayskaas hoos u dhaco oo fahno oo la macaamilo wixii lagu dawiila ama lagu hortagi lahay aan fahno saasay sababtu noqonaysa ama dawadiisu noqon doonta insha Allah